hogaamiyayaasha burcadbadeeda Soomaalida ayaa ku dhawaaqay in ay dib uga joogsadeen falkii xatooyanimo ee ay ka wadeen badaha Soomaaliya. warkan oo ay faafisay wakaalada wararka AFP ayaa waxa qaati laga taagan yahay bay ku sheegtay in burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya ay maraakabta dhexda u istaagaan. maxamed cabdi xasan oo isagu kamid ahaan jiray burcadbadeeda kana mid ah hogaamiyayaasha 8 sano ee burcadbadeeda hogaaminayay ayaa isagu sheegay in ay nabad ku baaqeen. taasina maanta munaasabad lagu qabtay ismaal goboleedka Ximin iyo Xeeb oo ku sheegay oo halkudhigeedu ahaa nabadu waa furaha nolosha. waxana uu sheegay in uu maxamed aaka uu aad u dareensan yahay inay howlahan yihiin kuwa khatar badan. waxa isaguna goobtaasi ka hadlay mid kamid ah burcadbadeeda oo lagu magacaabo maxamed waxana uu sheegay inuu hawshaasi joojiyay taana ayna dib uga tanaasuleen wixii dadka Soomaalida dhibaateynayana dib looga joogsado iyadoo oo ay dad fara badan oo maxaabiis ah burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya lagu qabtay ay ku xulan yihiin wadana kale balse inta Soomaaliya ay ku xulan yihiin ay ka badan yihiin taana loo baahan yahay in nabadda iyo deganaanshaha xeebaha Soomaaliya la xaq dhowro.